الله خيرا. سائل كانوا حليه هاي شيخ وما حي حكمك إن لبض قف مركا اسمه هرصدان برها بالشدة اللي قصوا فافيه سوي الردودي هوش النوع عسى وكل هول آدو صوفافيس دقن حمو إيا فول حمو إيا وحوي شرعي قال لهم مال لغا دعايو دقن كيانو لهاي كرامة شرفت لها وحوي الدرين كلها هناسها لها إنكو كهناسية حاسكيس وحصل ضمن خلاف سنت gabadhii oo aan xijaabnay oo xinaysan oo quruxdii ugu dambeysay ku taagan oo bal laga yaababa in waxa weeye cawradeedii ay muuqanayso jirkeeda in badan oo kamid uu muuqanayo in dunida daafaheeda laga daawanayo oo waxa weeye quruxdeeda laga wada daawanayo caalam waxa weeye tan noocaasi waa mid sharciga la xaraan ku ah waana dayuusnimo الديوث وانك ان كهنا سنين حاسكيس maxaad u malaynaysaa yaani ninka xaaskiisa qof kaliya aan ka hinaasin hadii sharcigu meel adag u dhigay maxaad u malaynaysaa ka dunida daafaheeda ku faafinay waxa weeye aadka u socodsiinaya fiidiyowyada iyo muuqaalada iyo sawirada kala duwan ka qaadaya Facebook la share gareynaya aadka loogu faafinayo waa wax sharciga khilaafsan dhaqankana khilaafsan dadnimadana khilaafsan damirkana khilaafsan raganimadana khilaafsan wanaag oo dhan iyo aqli oo dhan khilaafsan oo aan wanaagsanayn waxaanad moodaa maalinba maalinta ka dambeysana in ilbaxnimo laga dayayo bal waxa la gaaray oo dhacda labada qof markay heshiiyaan intaanu meher ku dhicin in lagu sii faafinayo baraha bulshada iyagoo is haysta coming soon qariiban ya waxa soo dhow ya bal waxa dhacday oo la ii sheegay hargeysa ka dhacday coming soon kaas in laga sameeyay board weyn laga sameeyay oo xafladii meherka inankiyo inantiyo saa isu haysta isku maran waxa weeye boardka lagu soo dhajiyay meherkeedina waa loo soo fadhiistay qoladii inantu ka dhalatay doonayay ninka inay u meheriyaan u xalaaleeyaan si uu jirkeeda u taabto ayaa waxay ku arkeen sawirkii oo meesha ku dhajisan oo sida wax looga sii badbadinayo kabahay ka qaateen waar gabadhaad hore u qabtay baad noogu yeedhan bay yiraahdeen waa lagu kala tagay meeshii waa lagu kala tagay marka waxaad dareemaysaa xataa sharciga iyo dhaqankiiba in la ilaaway sida waxa weeye loola jaan qaadayo caalamka iyo waxyaabo kale oo inoogu soo kordhay marka waxa noocaas aad looga waantoobo oo waxaan habboonayn mana banaana oo xaraam bay kugu tahay dhalinyaro joogta saaxiibka meherkiis oo noocaas inaad sheer garayso oo aad si faafisaana wa taawun ala al-ithmi wal udwan wa xumaanta aad si faafinayso qarba laga yaabaa inay yiraahdaan saaxiibkayba bay iga daba imaanayo hebelow like maad samay maxaad u sheer gareyn way ma xafladeeda iyo meherkayga aad ka dhimanaysa waxaan leenahay wax dambi qofna lagu adeeci may wa xaraan ficilka noocaasina ma banaana wallahu a'lam إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره.